Intaana muuqaalka bilaabin ka hor, daawadaha sharafta leh waxaa idinka codsan lahaa muuqaalka like inaad saartaan, waa free, wax lacaga ma aha. Sidoo kale daawadayaal subscribe saara Hal Abuur Soomaali calaamada yaroo guduudan dhagsi. Assalaamu calaykum, waa idin salaamay. Mararka qaarkiis bini'aadanka qaar sheedaamay noqdaan, qaarna waxay noqdaan malaa'ig. Laakiin aniga nin sheedaanan shukaansaday waana ku qaldanaa. Sidoo kale wiilka Cabdi ayaa la yiraahdaa. Laakiin wiilkan markii hore jecel dhabo iyo qamaandho dhale gadaal dambuu ka xumaaday. Maalin maalimaha ka mid ah boorsadayda waxaa ku soo ilaaway gaarigiisa ilaa uu isoo kaxeeyay. Waxaaba maqlaw wiilkan oo ku ormaandho dhale maanika ay hanjabaysaa dhowrayo xunka mindiyuuna watay wuuna isla hadlaa. Marka waxaa isira qofka mawaalaya talow ruuxan maxaad ku bare jaahilkan bis anigoo yaaban daaqad ku soo qarqaraacay. Cabdi seetahay saaxiib. Qurxleyda waa fiicanahay sharafay soo laabatay. Waa soo noqday maxaa dhacnayo. Aniga marka go'aan waxaan ku gaaray wiilkan inaan kala harno sababtoo ah uma bogin buu isoo waca markaas wuxuu igu yiri sharafay waxaa rabaa inaan ku guursado. Nama aniga i diidaysaa aniga guurkaada uma baahnay ku tiri gabadha. Markaas hanaaqday taleefankana way tuurtay. Kadib waxaa dhacday haweenada ka mid ah aniga xaafadda u sii socda qofkii waa wakan qurxleyda aniga ay diidaysaa wax ay timaha madowga timaha dhuuxisha leh balan waxaa igu inaan ku gooraco balan waxaa igu maandho cad dhashe inaan operation ku sameeyo jirkaada aan qalliin ku geliyo aniga ay diidaysaa sooma aqoon ma ileeda qofii. Kadib waa qayli waan soo orday albaabkii xirtay anigoo yaaban oo isla ninka muxuu ka damcsay. Run ahaantii ninkan aad baan uga cabsaday sababtoo ah aad buu igu hanjabay. Anigana waxaan ku wareedhe booliis aan kuugu wacayaa bastario ama soco ka carmeesh. Subaxii dambe fariino isoo diray oo video la socoto waxaa ku qoran doesn't it hurt macnaha oo laga wado muku xanuunsatay. Kadib videoga markaa daaray ilaa ninkan barkinteeda sawir ku sawiran oo mindigilna acuud bila ruuxan muu waashanayo. Maalin walba fariinso igu soo diray 100 message oo isoo diray. Run ahaantii waa yaabanaa sababtoo ah 100 message mid ka mid ah furay waxaan ku qorneed balan waxaa igu inaan riyooyin fara badan ku geliyo laakiin aniga hadday ogolaatid waxaas dhan waa ka dhamaan acuud billah. Ninkan sheedaan batalo aad buu iga cabsiyay ninkan sababtoo ah dabeecadiisa maana bogin mana fahmin sababtoo ah qof bini'aadan oo noocan weligii maana arkin. Maalmaha ka mid ah gurigooda igu imaado soo fariimo igu soo diraa qof ay garaal noqo xumaanan ku geysto ogaa waxay timaha dhuxusha leh maandho cadi dareen haddii jacaylan ku qabaay aniga waxaan ku helay jacayl diyaar u okay xooggan wax walba kaaga qaadana maxaa isku malaysa qof ay caatada badan balan waxaa igu inaan ku caji igu soo booday. Anigana aad u qalay sababtoo ah ninkan naftu rabo inuu iga saaro. Waan ku dilayaa maandho cadi xunta timaha dhuxusha leh. Anigana waa qayliyay afku gacanta iga qabta marka anigana waa wareega foq nama aniga ay qaninaysaa bastaradii farti dhan dhiiga iga imaado. Naayaha awooddaas yaa ku siiyay aniga igu qaniintid isku bedesho Soomaa sida iga u dhaqmaysa anigana balan waxaa igu sida iga inaa u dhaqmo soonku igu qaraacay washdhe. Kadib aniga waa soo orday bis wuxuuba arkay dad oo dariskeena ah oo meesha taagan waa cabsada ninkii isla maalintaas wuu orday. Kadib aniga nambarkiisa bloggan saaray anigana habeenkaas ama maalintaas waxay ka dambeeyeen ninkan maana arkin. Waxaa laga yaabaa in la xiray waxaan laga yaabaa gabdho kale inuu dhibaateynayo. Asxaabi waa soo laabtay like subscribe-ka 100 kuna gaarsiiya aad u mahadsan like fara badan noo saar. Aniga waxaa ahay police officer macna askari ahay. Waxaa jiro guri lagu xaman jiray sheedaamo inay ku noolyihiin 4 qof aan la waayay. Saasi tahay dhowr wiil oo meesha ka agdhawaa oo meesha ku noolaan waa la waayay. Marka aniga go'aan waxaan ku gaaray guriga inaan baaro dabay dacal. Saasi tahay waxaa ku agyaalay meel temple ah oo lagu duduceysto. Nin macnaha oo wadaad iska dhigayo kalaan la hadlay waxaan ku iri gurigan taariikhdiisa bal wax iga tataabo saaxiib. Markaas wuxuu igu yiri gurigan qadiimi waaye dad waa hore ku noolaa laakiin hadda sheedaamo ku nool. Aniga ninkan sheekadiisu maana bogin wuxuu igu yiri ha isku dayin gurigaas inaad booqatid xataa haddaad booqanays hal mid xasuusnow
hadduu bahalkaas qayliyo waa inaad kasoo orodaa, haddii kale meesha dhan way baaba-aysaa. Fahmi saaxiib, timaha dhuxusha leh aniga aqoon ima lihid, haddaba digniin waan ku siiyey. Anigana hadalkiisa si fiican umaana qaadan, meeshiyaan go-aan ku gaaray inaan soo galo. Tooshaana iska watay, maandhocnimo ay disha moogtahay. Meeshaan caaro waaweyn aba ku dhashaba calaamado. Kadib waxaa arkay indho aniga cabsi. Aniga nasiib xumo waxaa arkay bahal sida maski oo kale ah. Kadib bahalkan wuxuu igu yidhi caaw casha ay gacan gashay. Waxyow timaha dhuxusha leh balan waxaa igu inaad casho kaa dhigto. Anigana tooshkiyaa tuuray, kadib xabadii aan ku aadiyey wuu iga leexday. Bis waa soo dabagalay. Bahalkii anigoo iska daba socda meel mugdiyaan soo galay. Saasay tahay aniga niyadeyda waxaa ku jirta wax fiican aa soo helaysaa, laakiin ninkii mastarka ahaa oo meesha ilaalinayay wuxuu igu yidhi kasoo carar meesha. Bahalkaana wuxuu igu yidhi caawa cashaa noo gacan gashay, casho fiican aa helna. Anigoo cabsanay aniga wuxuu igu yidhi war bahalkaasaad daba raacaysid waa kii hooga ku geen lahaa maandhoco dhale, kasoo orod meesha maxaa si ka ah doqonyo xunka. Anigana isla markii waa qayliyey anigoo yaabanoo isla talow meeshan maxaa kasoo socdo. Waxaa go-aan ku gaaray dhinaca kale inaan soo booqdo. Dhinaca kalena waxaa ku yaala hoog aad u weyn, hoogaasna qofkii galaa oo u dhamaatay. Bis hoogii waxaa kasoo baxaba ilaa amarkiis bahalada sheedaamaha ahaa. Igu yidhi war maandhoco ku cunaynaa caawa intay galaysaa. Bis gacmo waaweyn aa meesha kasoo baxay. Aniga ilaa amarkiis gacmahaas waa ka badbaaday. Gacmahaas haddii ay qaban lahaayeen si xunaa la ii gali lahaa. Markii dambe nasiib xumo gacantay igu dhigeen oo isku duuduubeen. Markii dambe waxaan dareemay inuu soo socdo ninkii sheekha isku tilmaamayay. War i badbaadiye waa dhiman rabaa, bahaladan si xun ay ceejiyeen. Anigoo qaqaylana bahalkii iga soo gaaray. Maxnaa ninkii sheekha isku sheegaa balaayo akhriyay. Markii dambe bahalkii wuu qayliyey wuuna baaba'ay. Ilaa amarkiis waxaana waa iga foqeen. Ninkaas sheekha hadduusan ahaan lahayn aniga xaaladeyda meel xun ku dambeyn lahayd. Hooggiina wuu yaraaday. Aniga hooggi markaan kasoo baxay aniga dhan jirkeyga wuxuu yeeshay bilaa tamar. Marka waxaan go-aan ku gaaray inaan sii socdo, laakiin nasiib xumo dhulkan ku dhacay. Adiga markaan soo naaxay ninkii sheekha wuxuu igu yidhi waxaa samaysa wax khaldan waaye. Anigana ku soo qaaday. Maalinta waxay ka dambeysay aniga meesha dambe kuma noqon. Ninkaana nolosheedu badbaadiyay waana u mahadceliyay. Saaxiib ciao. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Dadkii la waayana waa ogaada meel ku dambeeyeen bahalkaasaa cunay. Asxaabi waa soo noqday bal like fara badan, subscribe kana 100 kun gaarsiid.